السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada walaalahayga Soomaaliyeed ku soo dhowaada channelkii dadweynaha Axmed Daawud channel. Wali waxaynu bartanka kaga jirnaa oo aan idiin soo tabin doonaa insha Allah barnaamijkeeni caawi walaalahaaga Soomaaliyeed runtii ku barakacay mushkiladu ay ka soo gaadhay dabkii weynaa xoogana runtii burburiyay hantidii ummadda Soomaaliyeed magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa Waaheen. maalintii uu barnaamijkaasi nagu bilowday dabku bilowday ilaa maanta waxaan anigu ka agdhowahay oo aan runtii intaba u taagnaa masiibadaas intay leekayd iyo baaxadda ay leedahay runtii waxaan la dareenahay mar walba bulshadii dhibkaas uu soo gaadhay oo guri walba caawa maanta bari ay saamaysay waayo waa meel laga biilinayay bulsho dhan oo Soomaaliyeed oo caruur iyo ciroolaba leh arday jaamacadeed arday iskuul dhigata iyo waliba magaranaysa caruur yar oo maati agoon ayaa ku jiray waxaynu markaa qiraynaa masiibadaas inay masiibo qaran tahay heer qaran oo aanay ahayn heer shakhsi heer qof heer guri heer reer inaanay ahayn laakiin ay isku bedeshay masiibadaasi heer qaran heer Soomaaliyeed ay isku bedeshay waxaynu wada dareensanahay walaalayaal habeenkii ugu horeeyay ee masiibadaasi ay dhacday runtii goobjoog baan ahaa waxaan waliba kamid ahaa dadkii ka qayb qaadanayay inay wuxuun kala soo saaraan oo alaabtaas ay kala soo samata bixiyaan bulshadii marka ay ka gubanayeen meheradaha iyo waliba guryahoodu intii Ilaahay nooga suura galiyay waa kala soo saarnay waaynu ka soo samata saarnay laakiin waxa meesha ku shuf beelay oo aan waliba muuqaal hore aan idin soo duubin aan ku daawadsiiyay sida uu ekaaday dhammaan suuqi Waaheen oo gebigiisuba noqday dambas looma ooyaana wax kale laga faa'iideeyay haba yaraatay aan jirin oo in xashiishka lagu daro xashiish bay isku bedeshay meesha haddaba dhiiladaas iyo warkaan naxdinta leh waxa iiga horeeyay barnaamijyo qurux badan runtii oo aan magaalada Hargeysa idinka diyaarin jiray oo aan idin soo tabin jiray quruxda magaalada Hargeysa iyo qaayaha iyo qiimaha ay leedahay taa bedelkeeda maanta waxa inoo yaala war naxdin dhiila leh oo runtii bulshadii Soomaaliyeed gaar ahaan Hargeysa quruxdaas ku faanaysay maanta ay shuf beeshay badidoodii in yar mooyaan maanta markaa murugti baynu la qaybsanaynaa aadna waynu uga xunnahay marada halka ay ugu xidhan runtii aad arkaysaan waxay tilmaamaysaa in maanta ay ilintu inaga qubanayso oo aynu ku ooyeyno guryaheena dhexdeedii inagoo markaa wax awoodoo tabara aynaan lahayn laakiin mar walba garabsanayna allihiina abuurtay jiray oo joogay isagu markii hore hantidayna siiyey walaalayaal iminkana inaga qaada mar walba markaa waxaynu ugu sabraynaa ugu dul qaadanaynaa runtiina aynu leenahay cawad khayr qaba Allah ugu bedelo bulshadii sida gaarka sida hoose uu sii taabtay dabkaas masiibada waayo waa masiibo heer qaran dhiiladan runtii waxay taabatay guri wal oo Soomaaliyeed haday noqonayso bari galbeed waqooyi koonfur meel kasta oo guri Soomaaliyeed uu ku yaalay qof damiir leh oo Soomaaliyeed uu deganaa ama uu joogay ayay masiibadaasi taabanaysaa damaqday runtiina ilaa hadda aynu arkaynaa inay qaarkood u heelan yihiin sidii ay uga soo jawaabi lahaayeen waxaynu bogaadinaynaa dadkaas markaa u taagan ee u istaagay garab istaaga walaalahooda Soomaaliyeed maanta ku hanti waayay masiibada qaran ee dhacday ee dabka waxaynu haddaba dul istaagaynaa oo mar labaad aynu isxasuusinaynaa ahmiyadda ay nabadu leedahay walaalayaal mar kasta oo aynu dad islaam nahay waxaynu ku tiirsanahay waa amniga ama nabaduna waxay qayb ka noqotaa dhibaatadii timaada in si fudud loo xalliyo sidoo kale in laga soo kabto mushkiladihiina soo gaadhay oo dhammaystiran masiibo kastoo dhacda haddii ay nabadi jirto oo aynu nabad ku naaloonayno waynu ka soo kabanaynaa idam Allah sida ugu dhaqsiyaha badan leh waayo nabadu waa saldhigga wax kastoo la qabanayo guul kastoo la gaadhayo sidaa darteed maanta waxay naga xumaan lahayd masiibada qaran ee nagu dhacday inagoo meel salka dhulka aynu dhignaba aan haysan guryo aynu dib ugu noqono oo aynu cadeeda ka harsano oo aynu roobka ka gallo oo aynu masiibooyin kale kaga badbaadno haddii aanay jiri lahayn bal ka fikira iyada oo hantidii kaa gubatay oo hantidii ay kaa shuf beeshay haddana aanad haysan meel aad dib ugu noqoto marka maanta waxaynu dhex joognaa waa walaalaheenii Soomaaliyeed dadkeenii baad la nooshihiin dadkeenii baad weli dhex joogtaan still haddii xitaa aanad haysan waxay aad cuni lahayd ama aad cabi lahayd waxaad ku tiirsan tahay waa walaalaha Soomaaliyeed oo kula dhashay maasha Allah taasina waxay cadaynaysaa maanta masiibada ayna soo gaadhay inaynu kaga nabad galay ama in kaga harsanayno
amniga nabadda aynu haysano. Nabaddu waxay u taagan tahay mar walba waa qofka biniaadamka ee weliba islaamka inuu gaari karo, dib u yegleeli karo, dib u samaysan karo, dib u habeyn karo ganacsi wixii ka burburay, dhaqaalo wixii ka burburay, waxbarasho wixii ka burburay, maadaameynu hore ay inoogu dhacday culaysyo tan oo kalea oo ka waaweyn mararka qaar qiimahaan marka la qiimeeyo dhibaatooyin ka culculus ka balbalaaran intan maanta inoogu dhacday maadaama hore inoo soo mareen, laakiin dib u kabasho aynu kasoo samaynay markaynu salka ka fadhiisanay ee amnigii iyo nabadii ay soo noqotay dib aynu oga soo kabanay, maantaba waynaga kasoo doognay ee ka quruxda badan leh. sidaa darteed amnigu waa meesha koowaad, nabadgelyadu waa meesha koowaad. sidaa darteed waxaa jira wadamo dagaal ay ka socdaan oo dadkoodii la gumaadayo oo laba ay iskugu darsameen marka amni la-aan iyo hoy la-aan iyo weliba cunto la-aan iyo weliba magaranaysaay dhul la-aan, deegaan la-aan, oo dhulyow kale iyo dadyow kale qaxooti ku dul ah oo markii la doonana wax la siinaya, markii la doonana loo diidi karaa. laakiin inagu maxaynu haysanaa nabadgelyo, nabad baynu haysanaa. marka masiibada weyne dhacday waxaynu kaga raysanaynaa ama ku ilaaweynaa nabadda ilaahay inagu abuuray, goobta uu ilaahay inagu abuuray oo nabada oo amniya oo inaguna aynu ka shaqaynay, taas baynu ilaahay ugu mahad celinayna. waxaan leenahay aynu ilaashana nabad baa caano macaan lacab, caano macaanoo lacabo nabad baa leh, nabad baa naas la nuugo leh baynu kusoo gabagabeynaa insha allah. sidaa darteed aynu ka adkaano nabadgelyada insha allah. xooluhuna way imanayaan, caano daatay dabadood la qabay xooluhu. masiibo waloo ina soo gaadhay dabadeed waynu kasoo raysan doonaa, waynu kasoo kaban doonaa insha allah. barwaaqadu way xigi doontaa oo waynu kasoo doogi doonaa, waynanu kasoo kaban doonaa. waayo balaayooyinka waaweyn oo ina soo marayba waa kasoo doognay, waanan kasoo raysanay. waxaanan hubaa anigu haddii aynu sabirka badino, dulqaadkana aynu badino, aynu sabirka ka dhigano miciinsano oo aynu walaal ka dhigano, waynu kasoo doogi doonaa, barwaaqaduna way iman doontaa. waxaad ogaataan inay tani tahay tijaabo rabbi xaggiisa ka socota oo laynagu eegayo sida aynu ugu adkaysano markay masiibadu joogto. sidoo kale marka ay barwaaqadu timaado iyada lafteeda sidaynu ugu sabirno, islamarkaana aynu ugu adkaysano, islamarkaana aynu ugu xamdi noqno oo rabbigiina abuurtay aynu u xasuusnaano. haddaba barwaaqadu way imane, yaan la moogaan, yaan la sugi waayin. waxa inoo dambeeya waa badhaadhe, waxa inoo dambeeyaana waa barwaaqo, waxa inoo dambeeyaana waa ganacsiyo waaweyn, waa hantideennii oo dib u soo laabata. waxaa ifafaale fiican oo qurux badan uu kasoo muuqdaa walaaliheenii soomaaliyeed meel kastoy joogaan, min kenya, min etoobiya, min koonfurta soomaaliya iyo guud ahaan jabuuti oo iyaguna qurbo iyo gudaba. waxaa kasoo muuqda ifafaalo wanaagsan oo ay nagu garab taagan yihiin, waayo inaguba waynu garab taagnay goortay masiibadu haysatay iyaga. sidaa darteed bowdyo rageed ama bowdyo walaal maalinba mid baa qaawan. barwaaqadu way imane oo waa laga soo doogiye, barwaaqadu way imane. aynu sabirka badino, dulqaadka badino insha allah. waxaa inoo ballana hargeysoo barwaaqaa, hargeysoo barakowda, hargeysoo qurux badnaata, hargeysoo haykalkeedii dowladnimo iyo haykalkeedii caasidnimada sii wadata, caasimad ahaan sii wadata, islamarkaana ay kusoo hirtaan dhammaan ummadaha soomaaliyeed oo dhan. waa meel ilbaxnimo ay taallo oo cid waliba ay joogto. waa meel lagu wada nool yahay oo amnigii iyo nabadii iyo weliba maxaan ku dhahdaay dowladnimadii iyo baraarihiiba ay yaalaan. ganacsiguna waa abuurmi doonaa oo waxa uu tegi doonaa ama gaari doonaa halkiisii iyo meel kasii sarreysa. maanta waa qubuuro, laakiin beritoole waxay noqon doontaa meel qurux badan oo aada iyo aada u iftiin badan ee aynu u sabirno intaynu halkaa gaadhayno. ballanteenu waa barwaaqada iyo inagoo ku sabirna mushkiladda hadda taagan. aada baad umahadsantihiin.